war degdega wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba laga bilaabo hadda uu furan yahay marinka Hormuz. waxay fariintan imanaysaa maalmo kadib dagaal muddo socday oo gebi ahaanba marinkaas ay Iran si toos ah u wada xidhay, taas oo wada saameysay adduunka oo dhan. dhaqaalaha adduunka ayay xaaladani wada taabatay, iyadoo maciishad badan qiimaheedu cirka isku shareeray. shidaalka ayaa sidoo kale ka mid ahaa meelihii laga dareemay xidhitaanka marinkan oo isku xidha gacanka Bershiya iyo badweynta Hindiya ayaa wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee ay maraan hantida kala duwan ee adduunku. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo soo dhaweeyay furitaankaas ayaa sheegay war uu si degdeg ah isaguna hadda ugu baahiyay bartiisa gaarka ah ee loo yaqaan Truth in Iran ay wada furtay marinkii ayna ku mahadsan yihiin. xaaladan ay Iran ku sababaysay iyadoo muujinaysa tallaabo fiican oo dhanka xabad joojinta loo qaaday 22 Abriil ayna ku egtahay xilligii xabad joojinta Iran iyo Mareykanku ay wada galeen, iyadoo aad moodo in adduunku ka soo kabanayo maalmo dagaal oo xaaladaasi ay adduunka oo dhan wada taabatay. Soomaalida ayaana ka mid ahayd meelihii laga dareemay xidhitaanka marinka Hormuz.